war-saxaafadada ay soo saareen guddiga aqoonsi raadinta jamhuuriyadda Somaliland ee war-saxaafadada ay soo saareen guddiga aqoonsi raadinta jamhuuriyadda Somaliland ee jaaliyadda magaalada Shafil ayaa waxaa lagu cadeeyay in jaaliyadaasi Somaliland ee ku dhaqan magaalada Shafil ay ku guuleysatay in golaha deegaanka magaalada Shafil oo kamid ah gobolada ugu waaweyn wadanka UK aqoonsi buuxa uu siin doono wadanka Somaliland labada bisha afraad ee sanadka 2014 oo ay inaga xigaan maalmo koobani war-saxaafadeedkaasi ay soo saareen jaaliyadda Somaliland ee magaalada Shafil ayaa waxa uu u dhignaa sida tan jaaliyadda Somaliland ee magaalada Shafil waxa ay muddo dheer ku howlaneyd sidii wadanka Somaliland aqoonsi buuxa uga heli lahaa beesha caalamka taasi oo ay lagu yiri war-saxaafadeedka riyada ugu weyn ee ummaddu leedahay haddaba iyadoo taasi laga duulayo waxa jaaliyadda magaalada Shafil sawir buuxa ka bixisay xaaladda dhabta ee ka jirta dalka iyadoo oo ka bilowday gobolka ay degan yihiin si guud ahaan caalamka cadaadis loogu saaro qadiyadaasi jaaliyaddu waxa ay soo bandhigtay waxyaabihii uu qabsaday dalkan jamhuuriyadda Somaliland iyo dadkiisa tan iyo muddadii ay reer Somaliland la soo noqdeen xorriyaddii ka luntay sanadii 1960 waqtigaasi oo ay Somaliland aqoonsi buuxa ka heshay 3 dowladood oo ka mid ah dowladaha adduunka isla markaasina ay halgan dheer kadib la soo noqdeen madax banaanidoodii 23 sanadood oo ay Somaliland xor ahayd waxa ay dhisatay dowladnimo dhameystiran oo aanay cidina ka caawin alla mooyaane iyagoo qabsaday doorashooyin xor iyo xalaal ah oo aan ka dhicin badiba wadamada Afrika waxay la dagaalameen burcadbadeeda halaaga baday adduunka waxayna la dagaalameen xagjirnimada waxayna ummadda reer Somaliland iyagoo isku duuban oo mid ah wada jira dhisteen dhammaanba shuruudihii dal madax bannaan looga baahnaa si haddaba taasi loo xaqiijiyo jaaliyadda Somaliland ee ku dhaqan magaalada Shafil waxa ay ku guuleysteen in golaha deegaanka magaalada Shafil oo ka mid ah gobolada ugu waaweyn wadankaasi UK aqoonsi buuxa uu siin doono wadanka Somaliland labada bisha afraad ee 2014 ee sanadkan kaasi oo ay inaga xigaan maalmo koobani haddii alla idmo maalintaasi ayaa noqonaysa arbacada soo socota waxaana war-saxaafadeedku isagoo hadalkaasi si wada jaaliyadda ka soo baxay uu sheegay in ay isu iman doonaan in ka badan 70 xildhibaan oo golaha deegaanada ah ayna u helin doonaan qaar ka mid ah xildhibaanada ugu cadcad golaha baarlamaanka wadanka UK iyada oo si aqlabiyad ah loogu codeyn doono inay magaalada Shafil dal madax bannaan oo adduunka ka jira u aqoonsan tahay wadanka Somaliland arrintaasi oo markii koobaad amaba ugu horeysay ee bogcad dunida ka mid ah ay ka dhacdo tan iyo sanadii 1960 in Somaliland laga aqoonsado xubnaha firfircoon ee hawsha garwadeenka ka ah ayaa hore booqasho waxa ay ugu tageen xarunta baarlamaanka Yurub bishii Oktoobar ee sanadii 2012 iyagoo ku guuleystay inay ka soo dhaadhiciyaan qadiyadda Somaliland waxaana booqashadaasi fududeysay Marwalinda oo iyadoo laga soo doorto Yorkshire iyo Humber hawshan lagu ictiraafayo Somaliland bisha Abriil labadeeda ayaa gacan buuxda waxa laga siiyay yiraahdeen guddigaasi maxamed macruuf oo isagu ah xildhibaan laga soo doorto golaha deegaanka magaalada Shafil oo ay taageerayeen Neil Gibson oo isna ah xildhibaan waxayna hawshaasi taageero iyo caawimo buuxda ka geystay xildhibaanada baarlamaanka wadanka UK oo laga soo doorto iyagana magaalada Shafil iyaga oo sidoo kale ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka UK ee u xil saaran arrimaha Somaliland iyo dalkaasi Soomaaliya jaaliyadda Somaliland ee Israaca oo ay la shaqeynayaan xildhibaanada golaha deegaanka ee maxamed macruuf iyo Neil Gibson ee kuwa baarlamaanka UK waxa ay ku guuleysteen in golaha deegaanka oo u badan xisbiga Labourka ay aqoonsi buuxa siiyaan jamhuuriyadda Somaliland sidoo kale dowladda imika talada haysa ay culays ku saaraan sidii guud ahaan dhulweynaha Britain iyo caalamku aqoonsi buuxa u siin lahaayeen Somaliland taasi oo iyadu arrin guul ah waana arrin cadaadis ku saaraysa xukuumadda UK inay bedesho siyaasadeedii Somaliland ay kula dhaqmi jirtay xubnaha hawshan baaxadda leh garwadeenka ka ahaa ayaa kala Neil Gibson maxamed macruuf Idris Xuseen Sahal Ahmed Qaadi Maxamuud Ismaaciil Ducaali Yuusuf iyo Aadam Ahmed Yuusuf oo aan u mahad celinaa bay yiraahdeen war-saxaafadeedkani waxayna xubnaha guddigani ugu mahad celiyeen war-saxaafadeedkaasi cid kasta oo hawshan baaxadda leh
kala qayb qaadatay kuna caawisay ayna ugu horeeyaan dhammaanba hablaha ururka tusmo oo ay hormuud u ahaayeen xaali jaamac kawle nadiire saciid rodo maxamed xuseen naadiye saciid hinda caydiid farxiyo bidhe sahre yuusuf sahal waxaa kale hawshaasi qayb libaaxa kala qaatay oo aan u mahad celinaa bay yidhaahdeen dhammaanba jaaliyadda reer shafiil oo ay ugu horeeyaan bare awgaab dagaal yaasiin carbooshe mujaahid cabdiraxmaan gees axmed jawhari suldaan cabdilaahi cali cartan canab cali gaas iyo qaar kaloo badan ugu dambeyntiina waxa ay ku sheegeen war-saxaafadeedkaasi inay soo dhoweynayaan wafdiga heer qaran ee ka socda dowladda somalilan ee u imanaya hawshan qiimaha leh si ay ula qaybsadaan farxaddan jaaliyadda reer shafiil ee waddanka u k sidoo kale waxaanu dhammaan jaaliyadda reer somalilan ee ku dhaqan gobolada u k ugu baaqaynaa bay yidhahdeen inay ka soo qayb galaan dabaaldega maalintan lagu dhawaaqayo aqoonsiga oo ah arbacada soo socota ee bishu tahay 2 bisha abriil ee fooda inagu soo haysa ayna yimaadaan konsalka shafiil hortiisa waxaana si gaar ah aan ugu marti qaadaynaa bay yidhahdeen safiirka somalilan ee waddanka u k cali aadan cawaale madaxa tv-ga qaranka ee yurub cabdiraxmaan maxamed aadan iyo guddoomiyaha baarlamaanka somalilan cabdiraxmaan cabdilaahi ciro iyo wafdiga culus ee ay soo dirayso xukuumadda jamhuuriyadda somalilan sidoo kalena waxaa maalintaasi iman doona bay yidhahdeen saxaafadda caalamiga ah ee ay ka midka yihiin b b c da aljaziira iyo wargeysyo tiro badan oo ka mid ah kuwa dunida